tani waa dekadda ugu weyn Somaliland waxaanay ku taalaa magaalada Berbera waxaanay ka mid tahay dekadaha ugu waaweyn ama loogu isticmaalka badan yahay mandaqadani ay ku taalo Afrikada Bari waxaanay dekadani tartan kula jirtaa dekadaha iyaguna kulaalaya gacanka cadmeed muuqaalkan aad hadda u jeedaan waa habsami u socodka dhismaha iyo ballaarinta iyo casriyeynta dekadda Berbera ka socota iyadoo lagu kordhin doono dekedii hore 400 oo mitir oo container terminal dekadda weyn ee ku taala Berbera marka aad dhugato ayaa waxa ay dhaayahaagu qabanaya hawlo xoogan oo baaxad leh in ay ka soconayaan waxaana laba jibaaran dadaalka loogu jiro sidii dekadani u hormari lahayd muddooyinka dhow ee soo socda dekadda Berbera ayaa ku taamaysa in ay noqoto hormuudka dekadaha kale ee dhigeeda ee ku yaala mandaqada hay-adda Jamhuuriyadda Somaliland u qaabilsan badaha iyo maareynta dekadaha Somaliland oo uu qarankani u igmaday Maareeye Siciid Xasan Cabdilaahi ahna maamulaha guud ee hay'adda badaha iyo dekadaha Somaliland ayaa u tafaxaydatay kamida dhalinta riyooyin badan oo qarankani lahaa tan iyo intii loo cumaamaday mas'uulkani hay'adda oo laga soo bilaabo sanadii 2017 bishii 9 ayaa dekadda Berbera waxa ay la kowsatay dardargelinta hawlaha shaqo ee marsada tayeynta guud ahaan dekadda tababarka shaqaalaha oo kor u kacay lana joogteeyay qalabaynta dekadda iyadoo loo dhameystiray imkaaniyaadkii lagu fulin lahaa hawlaha shaqo ee marsadu qabato keenida gaadiid casri ah oo kala duwan kuwaas oo fududeyn adeegyada ay bixiso marsadu waxa dhici jirtay shaqada dekadda ka socota waa shaqo aad u adag oo ku soo aragtay indhahaaga dadku waxay u baahan yihiin in safety-ga la ilaaliyo taasoo anaga priority no ah waayo nafta bini aadanku waa qaali agabka kale waxa kale waa la helaa mas'uuliyadda u weyn ee aanu had iyo jeer saarna waxa weeye inaanu safety-ga ilaalino dadka ka shaqeynaya dekadda Berbera hadday noqoto kabaha hadday noqoto halmadka hadday noqoto uniformka intaba iyo hadday noqoto tababarada joogtada ah ee muhiimka ah oo mar walba seminar loo qabto qaarna aan dibadaha u dirno marka runtii isbedel weyn ayay soo kutaasi imaanshiyaha maraakiibta waaweyn ee loo yaqaano mothershipka oo ku soo dhiiraday in ay ku soo xidhaan dekadda Berbera iyagoona hore dekadda Berbera uga haystay waji kale balse hay'adani hormuudka ka yahay Maareeye Siciid ayaa ku guuleysatay imaanshiyaha maraakiibta mothershipka loo yaqaano iyagoona wax weyn ka tari doona imaanshiyaha maraakiibtani ilaha dhaqan dhaqaale ee guud ahaan qarankani leeyahay Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa wax ilaalinta dekadda iyo sugidda ammaanka oo ah mid joogta 24 saacadood waxaana hay'adani madaxda maamulka iyo maareynta ka yahay Maareeye Siciid ku guuleysatay in ay ka mid noqoto dekadda Berbera dekadaha ugu amniyaadka iyo taxadirka wanaagsan la adduunka taasoo ay ku mutaysatay shahaadooyin caalami ah oo ay bixiyaan ururka ay ku mideysan yihiin hay'adaha badaha adduunka ee magacooda loo yaqaano IMO ballaarinta casriyeynta iyo dhismaha cusub ee dekadda Berbera ayaa ah iyaduna mid haatan gabagaba ku dhow
tahay goobta ay ku taalo dekeda berberi oo ah goob istiraatiiji ah kana wanaagsan dekedaha kale sida mandaqada oo kale maadaama ay ku taalo golofa cadan halkaasoo ay maraan albaabka hore ee dekeda berbera waxaa mara 35,000 oo markab sanadkii si aan u soo jiidano 35,000 oo aan macaamiil u noqono waa inaan diyaarnaa maakaanidihii ay u baahnaayeen loo qaban lahaa wax alaalo wixii dekeda qaban lahayd service hadday noqoto dry dock hadday noqoto transshipment oo aan ku tala jirno in sanadka dambe insha Allah 2021 aan diyaar gareyn doono waxaasoo dhan haddii ay noqoto oil bunkering si ay shidaalka uga qaataan hadday noqoto crew changing waxaasoo dhan wuxuu soo heynaya dakhli aad u fara badan 2021 higsigiga ayay ka mid tahay inaanu serviceda faraha badan leh aanu soo kordhino si aanu tartankii aan gula jirnay mandaqada aanu insha Allah u dhamaystirno iyo higsigii unugu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland